بسم الله الحمد لله. inta badan waxa la weydiiyaa ama waxa la kulmaa dad badan oo ka cabanaya oo leh doctor waxaan haystaa gas ama gastric baan haystaa aad u xun maxaan sameeyaa sidee baa loo daaweeyaa barnaamijka fikirkaaga videogan waxaan kaga jawaabi doonaa su'aasha waxaan ka jawaabi doonaa waa maxay gastritis ama gas sidee baa lagu ogaadaa inaad gastric haysato yani astaamaha lagu garto iyo sidii loo daaweeyo ayaan kaga sheekan doonaa videogan barnaamijka fikirkaaga ama kanalkan dad ku cusub tahay oo aad doonayso mar walba inaad la socoto oo aad rabto inaad kubciso fikirkaaga wacyigaaga iyo aragtidaada waxaad u baahan tahay kanalkan inaad subscribe garayso haddii aad su-aal gaara haysana ee ku saabsan arrimo kala duwan sida caafimaadka oo kaleeto waxay igala soo xiriiri kartaa facebookgayga oo ah kobci fikirkaaga. waa maxay gastric gas waa maxay gastric ama gastritis englishka lagu yiraahdo gastric waxa weeyaan caloosha waxa weeyaan waa boog ku samaysmata yani dayrka sare ee caloosha yani caloosha gudaheeda xuubka ku yaala ama magaras gidaarka gudaha ku yaala ee dhaawac gaaro ama boog ku samaysmato inta badan gidaarkana wuxuu protect gareeyaa uu ka difaacaa aashitada caloosha ay soo saarto ayuu ka difaacaa. haddaba waa maxay sababaha keena inuu qofku gastric inuu helo? waxyaalaha ugu weyn waxaa ka mid ah qofku inuu gastric helo waxaa ka mid ah bacteria la yiraahdo helicobacter pylori ama H pylori baa la yiraahdaa. bacteriadan waxay sameysaa caloosha deerka ku yaala ama gidaarka gudaha ku yaala caloosha ay waxay burburisaa ay dhaawacdaa ay dilaacisaa gidaarka. dabeetana sida hore idinkugu soo sheegay waxa gidaarkani wuxuu caloosha ka protect gareeyaa oo ka difaacaa aashitada ee caloosha ay soo saarto. sidoo kale bacteriadan H pylori la yiraahdo waxay cause gareysaa ay sababtaa waxa la yiraahdo peptic ulcer. peptic ulcer waxa weeyaan waa caloosha ee boog ku samaysmata ama mindhicirada qaybtooda sare ee duodenumka la yiraahdo ee boog ku samaysmata dabeetana dhiig ay sii deynaysaa qofkii dhiig laan baa ku dhacaysa. sababta labaad ee keenta qofka inuu gastric helo waxaa ka mid ah yani qofka oo isticmaalo non-steroidal anti-inflammatory drugs la yiraahdo NSAIDs ay loo soo gaabay la yiraahdo. waa daawooyinkan aan inta badan u isticmaalno xanuun baabi'iyaha iyo xanuunka aan u isticmaalno sida magarasta aspirinka, paracetamolka, ibuprofenka iyo diclofenka ayaa inta badan loo isticmaala magarasta daawooyinka xanuun baabi'iyaha loo isticmaalo ayaa inta badan keena ayadna. sidoo kale waxaa keena yani gastritis autoimmune gastritis yani difaaca jirka oo weerara yani gidaarka ama deelka ay soo sheegay ee caloosha weerara. sidoo kale waxaa keena stresska, sidoo kale waxaa keena qamriga oo qofku aad u cabo iyo tubaakada. qofku waxaa keena magarasa gaajo badan oo isku magarasa in badan oo isku daawado ayaa keenta. haddaba sidee waxaa ka jawaabnay iminka su-aashii ahayd maxaa keena? haddaba waxaa u imanaynaa su-aashan kale oo u imanaynaa oo ah yani sidee baa lagu baaraa, sidee baad ku ogaan kartaa inaad haysato? intaana su-aasha ka jawaabin waxaan u gudbaynaa astaamaha ama calaamadaha lagu garto ayaan u gudbaynaa. waa maxay astaamaha ama calaamadaha lagu garto inaad haysato cudurkan? calaamada koowaad waxaa ka mid ah qofka magarasa waxaa haysta waxa la yidhaha epigastric pain. qofka waxaa xanuunaya yani bogga ayaa laga qabanaya nabar, yani bogga meelaha ku dhawaad ayaa laga qabanaya qofka yani nabara ku yaala magarasa dee. dabeetana marka nabarkaas ayaa ku dhegaya qofka oo dareema magarasa matag, qofka oo dareema magarasa yani labalabo, qofka oo dareema magarasa maxaa yiraahdaa yani abitaadkii ka xirma. calaamada lagu garto waxaa ka mid ah qofka magarasa oo dareema laabjeex ama bogga inuu ku horayo. laabjeexa insha allah videogan soo socda ayaan kaga hadli doonaa waa maxay laabjeexa, ayaan kaga jawaabi doonaa su-aasha videoga soo socda.
calaamadaha lagu garto waxaa kamid a gastriga mararka qaar waxaa laga yaabaa inay magarasa dee calooshaadii uu dhaawac u gaaro magarasa yani oo dhiig sii dayso mararka qaar marka waxaa arkaysaa saxaradaadii ayaa waxay noqonaysaa madow bay noqonaysaa ama mararka qaar waxaa matagaysaa matag yani dhiig camal ama sida kafiga camal u eg ayaa matagaysaa. Okay, iminka waxaa u imanaynaa su-aashii ahayd sideebaa lagu baaraa, sidee baa lagu ogaadaa. kow markaa dhaktarka u timaado oo ama xarunta caafimaadka timaado waxaa la eegayaa qofkani ma haystaa bacteriada ugu badan ee koosgareysa ama ee sababta H. pylori la yirahdo ayaa laga eegayaa. H. pylori marka waxaa loo eegaa yani adigoo urea press test sameynaya kan koowaad urea press test adigoo sameynaya yani wax yar baa lagu siinayaa yani sida carbon oo kaleeto qofku uu laqayaa dabeetana geed naqaskaas ku sameynaysa marka naqaskaagii carbon dioxide ka adneysatay waxaa laga eegayaa ee magarasa bacteriada inay haysato. sidoo kale serological test ama the bloodka antibody-ga laga eegayaa ee bacteriada ay soo sheegay. sidoo kale waxaa laga eegayaa antigen stool test saxaradaada ayaa la baarayaa baaritaan waxaa laga eegayaa bacteriada laga eegayaa. sidoo kaleeto waxaa la eegayaa ee u baahan tahay magarasa de inaa eegto in normal dhiigga caadiga la qaado si loo eego magarasa dhiig la-aan inay ku dhacday caloosha inay dhiig sii daynayso. si ay caloosha inay dhiig sii daynayso lagu ogaado waxaa la eegayaa saxaradaada waxa la FOB test ayaa la eegayaa inay saxaradaadu ay madow tahay kalarkeedu inuu isbedelay inuu dhiig la socdo magarasa ayaa la eegayaa. sababtoo mararka qaar caloosha noqs dhiig bay sii daynaysaa dabeetana mararka qaar waxay isku bedeli kartaa maxaa la yani gastric perforation-ka calooshii magarasa inay dalooshanto ee wixii ku jirtay magarasa ay jirka kale kusii dayso ayaa dhici karta ama dhiig la-aan magarasa saa kugu dhacday ayaa dhici karta. ugu dambeynta waxaa la eegayaa wax la endoscopy ama yani gastroscopy ayaa caloosha la gelinaya. waa tuba yar, tubada waxaa loo dhaadhicinayaa camerad ayaa ku xiran tubada afka ayaa loo gelinaya wax loo dhaadhicinaya caloosha waxaa la eegayaa magarasa calooshi siday tahay magarasa gidaaradeedii dhaawacmay inuu dhaawac yahay inay fiican tahay inay wanaagsan tahay inuu nabar ku yaalo inuu nabar ku oolin in dhiig sii daynayso in dhiig sii daynin. mararka qaar haddii loo baahdana waxaa laga qaadaa magarasa biopsy ama culture ayaa laga qaadaa. mararka qaar waxa ay cudurkan u sababi karaya magarasa mararka qaar wuxuu noqonayaa inuu cancer caloosha isku bedelo magarasa ay dhici kartaa. haddaba waxaa u imanaynaa su-aashii ugu dambeysay oo ahayd sideebaa cudurkan loo daaweeyaa. haddaba inta badan waxaa la isticmaalaa ama ugu horeeya ee la eegayaa mar haddii lagaa helay H. pylori bacteriadii aan soo sheegna haddii lagaa helo waxaan u baahanaa marka hore in bacteriada la eradigala in la cirib tiro in laga saaro jirka in la baabi'iyo yani in la cirib tiro bacteriada inta badan markii la cirib tirayo waxaa la isticmaalaa oo magarasa yani ugu horeeya daawooyinka la isticmaalo 3 daawo ayaa la isticmaalaa ayagoo la wada isticmaalaya 3danba. daawada ugu horeysa waxaa la yiraahdaa PPI ayaa la yiraahdaa waa proton pump inhibitor ayaa la yiraahdaa. yani waxaa kamid ah daawooyinkan inta badan aan naqaano oo farmasiga lagu iibiyo dee caadiga waxaa la yiraahdaa waxaa kamid ah omeprazole baa kamid ah ama waxaa kamid esomeprazole baa kamid ah. waxaa isticmaalaysaa omeprazoleka waxaa isticmaalaysaa 20 garam baa isticmaalaysaa yani 2 maalin maalintii aa isticmaalaysaa. sidoo kale waxaa isticmaalaysaa amoxicillin baa isticmaalaysaa oo 1 garam aa isticmaalaysaa ama waxaa isticmaali kartaa 1000 milligram aa isticmaali kartaa 2 jeer maalintii. sidoo kale waxaa isticmaali kartaa clarithromycin ayaa isticmaali kartaa waxaa isticmaali kartaa 500 milligram maalintii 2 jeer aa isticmaalaysaa. haddii clarithromycin haddaa isticmaashay oo hore u isticmaashay waxaa lagu bedelaa levofloxacin baa lagu bedelaa. haddii aad hore u isticmaashay ma u baahnina mar labaad isticmaasho levofloxacin baa lagu bedelaa. 3 daawo aan idiin soo sheegay waxaa inta badan loogu talagalay inay cirib tiraan H. pylori magarasa inay cirib tiraan 14 maalin ayaa la qaataa. mararka qaar waxaa la isticmaalaa yani 4 daawooyin oo kaleeto waxaa la ilmaa metronidazole baa la isticmaalaa yani waxaa la isticmaalaa tetromycin idna waa la isticmaalaa PPI ga adii sheegay omeprazoleka waa la isticmaalaa. sidoo kale waxaa la isticmaalaa pithmus ayaa la isticmaalaa 4 daawona waa la isticmaalaa laakiin 3 hore oo idiin soo sheegay ayaa inta badan la isticmaalaa ee aad u wanaagsan effective fiican leh. okay, sidoo kale haddii lagaa waayo H. pylori testiga haddii lagaa waayo waxaa la isticmaalaa inta badan
يعني كليه waxa la isticmaalaa PPI ga idin soo sheegay oo omeprazole PPI wuxuu sameeyaa aashitada caloosha ay soo saarto ay magarasada uu yareynaya ama uu blogareynaya ama ma soo saarayo aashitada caloosha ay yareynaysa magarasada daawooyinka ama ma soo saaraysaba sidoo kale waxa la isticmaalaa magarasada maxalla H2 receptors antagonist ayaa la isticmaalaa waxa la yiraahdaa ranitidine oo kaleeto ama cimetidine baa la isticmaalaa ama famotidine baa la isticmaalaa saddexda daawo ayna wuxuu yareynaysaa يعني أسيد كعلاشة أما أشي تدا أما أسيد كعلاشة أساس أعطى أي يراني داوي كأكشن كذا سيدا ويان وقدامنتي واحد وبا أنت هنا بدشوا لايف ستايل كغاب كنرش هذا التهاي واحد وبا أنت مركز أدو حنا سئين هذا ولرجين واحد وبا أنت مجرس ده إن هذا جاجب بربان اسكو داونين واحد وبا أنت مركز أتسيحنا سو أتليست ويران 6 ساعات 4 ساعات كور هنا وعنتو عنتوين ك ama ku dhibaya ama garasa ku dhibayna waxa wanaagsan inaad ka fogaato waxaan u maleynayaa su'aashii ina ka jawaabay halka ayaan istaagi doonaa videogan haduu ku cajibiyay oo aad islaada saxaabtaadu u anfacaya fadlan waa la wadaagi kartaa halka ayaan istaagi doonaa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh